hadduu muuqaalkan kusoo gaaro subscribe-ka ii saar gambalaalkana furo saas kula socona like-tana hayala bakheelan waa mahadsantihiin walaalayaal. halkani waa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waxaa socoto u dabaaldega madaxweynayaasha labada ah ee markaasi isku soo haray roundka saddexaad madaxweynayaashaasi oo ah madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa socota xisaabintii roundkii labaad ama wareegii saddexaad aan idhaahno ayaa socoto dadku waxay rajeynayaan in labadaas madaxweyne mid ka mid ah la dhaarin doono ama lagu dhawaaqi doono isla daqiiqadahan aan ku guda jirno walow ay saadaashu u badan tahay inuu soo laaban doono madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dadka buuqaya arkaysaan waxay u buuqayaan ama u dabaaldegayaan intooda badan waxay ku dhawaaqayaan Xasan Sheekh Maxamuud dabcan waxayna arkeen in codadka ugu badan ninkaasi uu helay saas darteed Soomaalida ku dhaqan magaalada tani Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waxay bilaabeen dabaaldeg dhaqso ah oo degdeg ah walow dad badan oo markaasi arrinka isaga ka soo horjeeday ay jiraan oo si toos ah u taageerayay ama uga soo horjeeday muxuu ahaa arrinka isaga ah oo dabcan taageersanaa Farmaajo laakiin Farmaajo laftiisa markii waagi hore la dooranayay ku soo baxayay sidan kadaalika ay Islii ahayd oo sidan ayaa ka dhacday waxaa ka dhacay dabaaldegyo waaweyn oo caynkan oo kale ah iyo weliba kuwa kasii daran ayaa ka dhacay sida darteed aan hadda sidii oo kale maantana isla saacaddan hadda aan hadlayno oo caawa ah oo la xisaabinayo wareegii labaad codka la xisaabinayana wareegii saddexaad aan idhaahno oo lagu dhawaaqi doono mid ka mid ah labadaas madaxweyne walow la rajeynayo oo aad iyo aad ay ugu badan tahay in lagu dhawaaqi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo codka ugu badan inuu helay la rajeynayo dadka Soomaalida ah ee halkan ku dhaqan si weyn ay ugu dabaaldegayaan arrinka isaga ah kollaba Soomaalidu meel kasta joogto jirka ay isku damqayo oo waa dad wada dhashay wada yaalla wada cuna meel kasta muxuu ahaa Soomaali waa Soomaali laakiin kii soo baxaba khayr Allah ka dhiga ayaan leenahay in kasta oo dadka mujtamaca meesha ugu badan ee halkan joogto la rajeynayay inuu soo laaban doono Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin nasiib wanaag hadii laga badiyay dabcan waxba mashaakil ma laha kii soo baxaba waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow waa maalintaadii maanta waa maalin weyne maanta ayaan leenahay insha Allah kii soo baxaba ilaahay ka dhigo kii Soomaaliya mideen lahaa oo sida lagu dabaaldegay loogu soo baxay loogu mashxaraday loogu farxay u noqda mid u anfaca munaafaca weyn u keena dalka dadka iyo weliba diinta aad iyo kulan wacna wanaagsan idin lahaantii daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan in hawada ku saaxiibno ku soo dhawaada qodobo gaar ah oo ku eegi doono xaaladda doorasho ee ka jirta ama ka socoto waqti xaadirkan aan la hadlayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya teendhada Afisiyoni waxaa ka qabsantay doorashadii la wada sugayay muddada badan soo jiitamaysay taasi oo dad badan naftooda ay ku waayeen dad badan ay ku kala irdhoobeen oo gebi ahaanba khalkhal weyn gelisay amniga iyo weliba xasilooni darrada dalka ugu dambeyn ilaahay ayaa mahad iska leh maanta oo 15ka bisha May oo ku beegan tahay maalin Axad ayaa waxaa qabsoomay doorashada iyada ah walow saacadan hadda aan idin la hadlayo la marayo qaybihii ugu dambeeyay ku dhawaaqista aan idhaahnay madaxweynaha hogaamin doono dalka Soomaaliya 4 sano inagu soo foodleh inagu soo socoto haddii Allah awood u qadaro labada madaxweyne ee isku soo haray ayaa ah labadaba laba madaxweyne oo horaan dalka madaxweyne uga soo noqday madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo isla haddan la taagan yahay madaxweyne ka waddanka Soomaaliya isla markaana la filayo saacadaha soo socda in lagu dhawaaqi doono isaga ama dhigiisa aan idhaahnay Xasan Sheekh Maxamuud oo isagana ahaa madaxweyne hore oo markaasi xilka ku wareejiyay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo labadan madaxweyne ayaa aad u soo hirdamay oo wareegga saddexaad saacada hadda aan idin la hadlayo lagu jira oo markaasi aan rajeynayno in lagu dhawaaqi doono mid labadaasi kamid ah hadduu Allah awood leh qadaro Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba waxaan barbar dhigi doonaa wax qabadka Farmaajo oo qabtay 4 sano inoo dambeysay sidaan wada ogtihiin waxa la yiri nin xil qaaday qaad saas darteed qof kasta oo markaasi xil qabta ama madaxweyne ha ahaado ama wuxuu ahaadaba markaasi xil uun qabto waxa soo wajaha caqabadooyin badan iyo eedooyin badan oo la xiriira kuwaasi oo dabcan ka dhan ah
markii si muxuu ahaayey loo fiiriyo xaaladaha muxuu ahaayey uu samaynayo iyo ficilada uu samaynayo walow ay jiraan ficilo wanaagsan oo fiican oo markaasi uu sameeyey madaxweyne cabdullaahi farmaajo ayaan ku hormaraynaa waxa uu sameeyey waxyaabo badan ayaa la sheegaa lagu soo eedeeyaa dad baa lala baxay iyo waxbaa si noqday iyo hebel baa la afduubtay iyo habla iyo shirqoole iyo hebel baa ka dambeeyey hase yeeshee saacadda hadda aan taagannahay markii laga hadlo waxqabadkiisa waxaa ka mid ah ciidamada dalka iyo weliba dib u dhisidda aan idhahnay militariga iyo awoodda dalka ayuu farmaajo aad iyo aad qayb libaax ama xibil libaax uga qaatay markii loo eego weliba sidoo kale waxaan odhan karnaa intaasi kaliya ma aha waxaa soo noqotay bilicda iyo weliba quruxda ay lahayd magaalada caasimadda ah ee markaasi aan idhaahna muqdisho oo dabcan u muuqatay meel xere qaxootiya aadna u burbursaneyd saacaddii markaasi uu hogaanka la wareegayay madaxweyne cabdullaahi farmaajo shacabka ayaana si weyn u taageera walow maanta ay shacabka codeyn lahayeenna layskuma yimaadeen hal saacna doorashada ma socoteen dhaqsana waxaa lagu dhawaaqi lahaa madaxweyne cabdullaahi farmaajo waa haddii shacabka codka loo wareejiyo waa sida aniga aan qabo adiga daawanaya aad qabto markaad ka hadasho xaqiiqada saxda ah ee social mediaha iyo maanta aan ku wada jirno iyo waliba dad shacabka reer muqdisho ee markaas muqdisho ku sugan waxa ay sameeyaan ama waxa ficiliyan ay soo bandhigaan inay tahay farmaajo kaliya markii la weydiiyo su'aalaha dadweynaha ama shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad waxay u jecel yihiin farmaajo iyaga oo markaas la xiriiriya waxqabadka ciidamada dhisidooda iyo waliba bilicda magaalada oo markaas dib ay u soo noqotay ama uu soo nooleeyay eedeymaha kaliya ee la xiriiriyay aan idhaahday madaxweyne cabdullaahi farmaajo la xiriiriyay ayaa ah dad baa lala baxay waxbaa la afduubtay laakiin kama uusan hadlin waxyaabahaasi oo dhan ayaa loo soo jeediyaa ama lagu eedeeyaa laakiin intaasi aan ka ahayn siyaasad hanaansan iyo weliba dhisid ciidan ayaanu madaxweyne cabdullaahi farmaajo ku aragnay ama aan ku barannay isla hadeertaana haddii laga guuleysto dabcan waa nin wax soo qabtay oo taalo ku leh waddanka haddaan gudubno xasan sheekh maxamuud sida kadaalika wax badan ayuu soo qabtay wax badan ayuu soo taray walow dadka isagana ku eedeeyaan xasan guurguurta xasan qoslaaye waxba caynkaas oo kale ah iyo hadallo weliba dhaawac u geystay siyaasadiisa kuwaas oo ah mushaar bixinta ciidamada iyo weliba marka laga hadlayo dib u dhisidda soo celinta bilicda magaalada muqdisho oo 30 sano inoo dambeysay burbursanayd kuwaasi oo badan ay ku guuldareystay laakiin dalka waxa uu soo gaarsiiyay doorasho oo markaasi si degan oo nidaamsan oo akhyaarnimo la oo waliba walaalnimo kalgacayl la ayuu xilka ugu wareejiyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waana la ogaa oo markuu u dhibayay xilka si degan oo akhyaarnimo ah ayuu xilka iskaga wareejiyay oo markaasi ku dheehan tahay sharaf iyo karaamo iyo madaxweynenimo taas darteed ayuu wuxuu ku mutaysan karaa in mar labaad uu madaxweyne noqdo adiga daawanaya adigoon eegaynin reer hebel ama qabiil eegaynin markaad runta ka hadasho labada qof shakhsi isbarbar dhignay labadaba oo laba madaxweyne oo Soomaaliyeed oo saacadan ama daqiiqadan hadda aan kula hadlay lagu dhawaaqi doono mid kamid ah walow saadaasho ay u badan tahay in uu soo gali doono sida hadda roundka saddexaad dhamaadka la yeerinayay roundka saddexaad xasan sheekh maxamuud mudane madaxweynaha aan filayo in daqiiqadaha inagu soo lagu dhawaaqi doono doorashadiisa ama madaxweynimadiisa lagu dhawaaqi doono adiga ahaantaada maxaa kula gudboon maxaa yacni markii la yiraahdo xasan sheekh maxamuud hadda already codod badan ayuu helay waa la iskugu shubay laakiin sidii micnihi hadda adiga kula tahay ahaantaada maxaad filaysaa xasan sheekh maxamuud in uu ku soo baxo mase ma rajeynaysay kolba aniga hadlaya ahaanteyda ma rajeynayna xasan sheekh maxamuud inuu soo laaban doono waxaan rajeynayaa xasan cali khayre sheekh shariif sheekh axmed iyo farmaajo saddexdaas deniga xitaa hadda roundka saddexaad soo gudbay uma maleynaynin inuu soo gelayo roundka labaad xitaa round 1 inuu ku dhacay umaleynayay laakiin waxa waa siyaasad waxa codeynayna waa baarlamaan lacag ay shaqeynayso qabiil ay shaqeynayo meel kasta ay shaqeynaysaa ilaahay Soomaaliya ha samata bixiyo kii soo galaba Allah ka dhigo mid khayr iyo barwaaqo iyo bashbash iyo nabad iyo nasasho u horseedo idam alle adiguna aamin soo qor insha Allah waxaan rajeynaynaa kii lagu dhawaaqaba baraaro iyo bashbash iyo barwaaqo inuu ilaahay uu ina horseediyo markaasina ilaahay uu ka dhigo insha Allah kiina hogaamin laha 4 sano soo socoto si nabad ah oo markaas cadaalad iyo sinaan iyo kalgacayl iyo Soomaalinimaba ay ku dheehan tahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin muuqaalka share inoo dheh like tayna nagu caawi mahadsanid